beelaha waa u sheegto way kala hadasha marka waxaan u arkaa horta horumar wanaagsan maxaa yeelay dilkii waa yaraaday iyo dhibaatadii shacabka lagu hayay muddadii la bilaabay hubka dhigista saadka warqabtaba hadda ramadaanul kariima la galay si wanaagsanaa loo afuray alxamdulillah ayaan leenahay. dhinaca kale Master Salaad Cali Jeelle ayaa shaaca ka qaaday in dawladda cusub ee uu majara u hayo madaxweyne Farmaajo muddo kooban ay rajo weyn gelisay shacabka waxaana uu sheegay inay wax ka qabatay arrimaha la dagaalanka musuqmaasuqa amniga bixinta mushaaraadka shaqaalaha rayidka taasi oo uu sheegay in mustaqbal ifaya ay u muujisay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. runtii dawladdaanuna saddex arrimood oo hadda horumar la dhihi karo ayay gaartay oo bilow wanaagsan horta corruptionkii way la dirirtay oo dakhligii wuu soo kordhay waxay kale mataqaanaa dhaqaalihiina halkaas ayuu soo kordhay markii corruptionkii lala dirira dhaqaalihii baa soo kordhay waxaa kaloo ay gaartay amnigina horumaray ka gaartay oo hubka dhigistaasi ama dadka hubka la wareegaysanaya oo markaasi haddee aan meel ammaan uga shaqayhayn oo markaasi dhibaatada ilaan shabaabka iyo ninka aan hubka si sharciya ku wadan waa isu ekaanayaan maxaa yeelay lama kala yaqaano marka waxaa la dhihi karaa marka taasna horumaray ka samaysay arrimaha marka kaleetood oo mustaqbal wanaagsanna waa soo ifiyay markii ay soo baxda in corruptionkii lala dagaalana haddee waxaa soo baxaya mustaqbal wanaagsan islamarkaasna mar uu ka hadlayay Salaad Cali Jeelle dadka dhaliishan hubka dhigista ayuu shaaca ka qaaday in dawladdu ay waajib ka saaran tahay in shacabkeeda ay siiso nabadgelyo taasina aan loogu aabayeelaynin dadka hubka in ay ku dhibaateeyaan raba shacabka sida uu hadalka u dhigay. shacabka magaalada Muqdisho ku nool ay nolol iyo xasilooni ay helaan ayaa waajib ka saarana sidaa darteed marka qofkii yiraahda hubka la qaadi maayo maxuu bedel ma heli kariyo oo dadku ay ku noolaadaan marka taas waayana waxa la diidan yahay oo aan cidna aqbali karin inay dadka argagax ay ku noolaadaan.